iyadoo ay badatay aqoon-darrida dadka waaweyn iyo dhalinyarada ka daaday waxbarashada ayaa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Evergreen Balcad ayaa waxa uu fursado qaali ah siiyay dadka waaweyn iyo sidoo kale dhalinta ka daaday waxbarashada si waxbarashadooda ay u dhameystaan iyadoona dadkan fursad loo siiyay inay waxbartaan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha walow maalmaha kale ay raadsadaan nolol maalmeedkooda xilli aan booqasho ku tagay dugsiga Evergreen Balcad ayaa dadka waaweyn iyo dhalinta ka daaday waxbarashada iga warbixiyay dareenkooda ku aadan fursadan qaaliga ah ee la siiyay haddaan nahay arday iyo haddaan nahay macallimiin waxaan kaloo rabaa inaan mahad u celiyo waa marka hore salaanta aan rabaa inaan ku bilaabo maamulka Evergreen oo noo fiday waxbarashadan hadda alle koray Ilaahay noogu madeeqay iyo maamulka degmada oo ogolaaday maxaa yeelay haddaan maamulku soo ogolaanin wax socomale amniga asiga iska leh waxaan kala marka hore inaan ku salaamo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ardayda iyo macallimiinta iyo baxda saxaafadda ee nagu soo biiray iyo dhammaan haweenka ku jira waxbarashada iyo shaqada leexsanba waxaan ku salaamayaa mar labaad salaanta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan soo dhaweeyahay anoo kamid ah odayaasha waxbarashada kamid ah oo inaan maanta waxbartaan ugu talagalay waxbarashada noola fiday aad iyo aadaan u soo dhaweynaa aad iyo aadaan waxaan malaynayaa waxaan jeclahay inaan ka faa'iidaysano waa fursadna soo martay ma sha Allah maanta waxbarashadan oo nalagu saaciday Evergreen ma sha Allah aad iyo aad ugu hambalyeynaa dad badan oo jaanisyo badan oo weysanaayeen oo haddana maanta Khamiis iyo Jimco oo jaanis u soo wada helay aad iyo aad horta ugu farxinaa Evergreen ma sha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka dadka kale oo maanta inta ka sii maqan oo dhalinyartii حتى يعني ولوسي وربحي كرا دتك تولوين كدجن أو قميص جمعة إيمانايو حتى وحبرشوا ما أنت أبوك هذا يقلنك هذا بس الإمام ما أنت أدي هذا هرت أقفر حنا دليرة هان دقمة بالعد وكل شيء مركب معلمين وحديل هاي أدي ومهسينهن iyadoo dadkan waaweyn ee waxbaranaya ay u badan yihiin haween ayaa qaar ka mid ah haweenkaasi ka warbixiyay qaabka hufan oo ay waxbarashada ugu socdaan iyagoona dhanka kale uga mahadceliyay maamulka iyo sidoo kale macallimiintii soo abaabushay barnaamijkan waxbarashada dadka waaweyn magacayga waxa waaye Xamar Maxamed Cali waxbarashadan oo ku faraxsanahay waxa waaye asalka hore fursad uma haysanin hadda Jimci iyo Khamiis baan loo dhigooyaa oo ciyaalkan dugsiga iyo iskoolada laga soo wada fasaxooyo الحمد لله رب العالمين وكفرح سنة آذان أو فرح سنة سيدا أديك أو ماموينك ونهاي وحائق كل في هذا ساعة أنا أوريرنا كذا أوريرن تقفت هذا أديك العقد أديك أو رك أوجايا بوجي ولا صورت قف كلام تو أديك أو معلنا هالإماها وحدها قفتها وحيق سوق هذا هلها أديك شم بخل أو أديك العقد سوق هذا حنها إيه حساب هذانا برجع هذا واحد اللي صوصي هذانا برجع عمل هذانا وابحها haddaan buu hadan qofkii u tagaa waxay u dhahaan laba bari aan ku siiyay 22 ma aqaan bira loo xisaabto ma kala kasaay waa soo baxa qof hadan oo waxaan raadinaa waxbarasho taqaanto waxaan dhahaa qoftaan 500 aan ku lahay laba bari waxay isiisay 30 ma qaa ku leh oo xageed iga jirto adiga qoftii isoo saxaysa hadan waa imaaha hadan waxaan dhahaa wax isii hadan 10 camal isoo taagay hadan isbuuc ka bacd waxay ilaada ma haaya ilaada haddana kadib qoftii aad wax barashada waxaan dhahaa isbuuc wax ma ka soo qaadin maalintii intay noo mareysay oo kuumahay inaa wax barasho dib u banaan oo bilaabo taas ay u qasabtay ugu dambeynna maamulaha guud ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Evergreen Balcad Ismaan Maxamed Muqtaar Ustaad Julius iyo maamulka ku-xigeenka Ustaad Cali Dalbayare iyo qaar kale oo kamid ah macallimiinta ayaa waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan qof walba oo danaynaysa waxbarashada isla markaana dadkan la siin doono 6 bilood oo koorso ah kadibna ay qaadan doonaan shahaadooyin kullay wixii war aan dhihi lahaa maamulaha dhahay Ustaad Ismaan Maxamed Muqtaar Julius ilaahay xifdiyo كل رنتي إلهي سبحانه وتعالى ما ذكر ثم maamulka iyo macallimiinta iyo every person oo maxaatirada ka qayb galay oo ka maxaatirada ka qayb qaatay in dib loo bilaabo cidii fikirkeeda lahayd in maxaatirada dad badan runtii oo aan jaanis kale helaynin maalmaha kale
ayaa looga faa'iideeyey ujeedka wax loo barayna ma aha mid horta free waa oo lacag ma aha anaguna hadda dadka waa la iska leeyahay maxaa tiraahdaa barnaamijkan muxuu yahay wax baa la isku weydiinaa laakiin annaga ka maamul ahaan iyo ka macallimiin ahaan oo isku duuban waxaan go'aansanay dadkeena reer Balcadka ee aan jaaniska helaynin maalmaha kale Sabtiga ilaa Arbacada inaan uga faa'iideyno inaan xooggeena iyo caqligeena iyo aqoonteena aan ku saacidno anigu waxaa ka mid ah macallimiinta dugsiga hoose dhexe sare Evergreen wax ka soo baratay lagu aas-aasay waliba waxaan ahaa dufcadii saddexaad haddana waxaa nasiib u yeeshay inaan iskoolka macallinka sii noqdo macallimiinta wax ka dhigta dugsiga ka mid ah waxaana ka baxay sanadka markuu ahaa 2006 2007 iskoolka ka qalin jibiyey ilaa iyo haddana waxaan ka ahay macallin waxaana sii jeclahay intaaba noolahay inaan iskuulka macallinka sii ahaado horumarkiisana aan ka shaqeeyo dadka waaweyn iyo dhalinta ka dahday waxbarashada oo fursadan qaaliga ah la siiyay ayaa gaaraya ilaa iyo 1200 oo arday kuwaasi oo dugsiga dhigan doona maalmaha Khamiista iyo Jimcaha iyagoona qaadan doona dhammaan maadooyinka uu dugsiga bixiyo maalmaha kale